faa'iideysan labadaas shay marnaba hadaycin bini'aadanka agtiisa bini'aadanka waxyaabaha uu haysto labada shay oo kaliya uusan ku iibsan karin lacag oo wax walba uu haysto xoolo walba uu haysto boqortooyo walba uu yahay lacag kuma iibsan karo meel walba adduunka joogo labadaas shay waxa waaye waa caafimaadka iyo nolosha caafimaadka qofka hadduu xanuunsado oo mataqaanaa cudur ku dhaco cudurkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad siin karo daawo kaliya wax ma tarta qofka طبعا sida oo mataqaanaa muslimiin u nahay oo caaqid ahaan u haysano waxa caafimaadka Ilaahay bixiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa idha maridtu fa huwa yashfiin sidoo kale mid kale waxay tahay nolosha bini'aadamka oo dhan hadda isku tagaan maanta hadii waqtigaaga la gaaro waa dhimanaysaa lacag walba hayso boqortooyo walba hayso wadanka doonta ka soo jeed cida doonta ahaa dhimanaysaa yaani hal qof oo ku iibsan karo lacag ma jiro nolosha inuu nolol haysto oo si noolaado waa tii rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa ku tilmaamay ni'matani maghbunun fiihima kathiru min an-nas yaani laba nimco oo dadka ay ka qatan yihiin oo dadka yaani mataqaana ay ku siran yihiin ay ku kadsoon yihiin jirto labadaas nicmo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay as-sihhatu wal firaq yaani waa caafimaadka iyo firaaqa micnihiisu waxa way noloshaada hadii aad jaanis haysato weli waad nooshahay jaanis haysataa macnaha nolol haysataa noloshaada ha baabi'inin caafimaadkaaga ha baabi'inin ku dadaal sidii aad kor ugu qaadi lahayd caafimaadkaaga si nolol qurux badan aad u noolaato